بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنتهي waxaan u aragnaa hadaan yahay anigoo xaamud diirane ahna kooxda 4 Maars ee qurba joogta ah si qurux badan oo farxad leh ayaan u soo dhaweynaynaa siday ummadda reer Djibouti ee dadkaygu dhaqan bay u lahaayeen had iyo jeer wax kastoo jira inay wada hadal iyo geedka ay ku dhameystaan maadaama wax taa ku cadeynaya farxadii ay muujinayeen shacabka reer Djibouti ay guriga ummadda hortiisa ay istaageen ay ugu soo banbaxeen annaguna dhaxantii Yurub ayaan saa u taaganahay marka aad iyo aad baan u hambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ismaaciil Geedi Xareed aad iyo aad waana dhaqan baan u lahayn asal baan u lahayn aleelahe wuxuu ragu kacay oo rabbina aqbalay dimiyay raagan waa taadeed guushii waana ku hambalyeynaya hambalyo ayaan leeyahay dad shisheeye ah oo soo dhaxgala dadkani xeer bay lahaayeen waxba u yaala meel wax kastoo dhacana odaybaa ka talin jiray odayadiina waa kuwa ka taliyay ay horseedka ka yihiin madaxweynaheena iyo Ismaaciil Geedi Xareed كنتid hambalyan lahay waxaan salaamayaa ummadda reer Djibouti assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh assalaamu calaykum Fawziyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay heshiiskii UNB iyo USN aad iyo aad baan ugu faraxnay waa heshiiskan sugaynay wadanku maxay wuxuu u baahan yahay in gacmaha la isqabsado ina waxa jira waxyaabo badan oo ah ina sida maxay ahayd waxbarashada sida caafimaadka in la iska kaashado oo la iska laga hortago oo dadku ay iyagoo isku maxay ahayd duuban ay wax wada qabsadaan ayaan qurxoon heshiiskana mid aan sugaynay oo wax badan aan u haraadnayn buu ahaa aad iyo aadna waxaan ugu mahadinayaa madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ismaaciil Geedi Xareed heshiiska ay gaareen ayaan aad iyo aad u hambalyeynayaa waxaana leeyahay reer Djibouti ma sha Allah oo isku duuban oo hawlo badan maxay ahaydey wax wada qabsada oo ummaddu waxay hiigsanaysaa dayaxay hiigsanaysaa adduunka dayaxa la hiigsanayaa inaan ka mid noqono weeyaan reer Djibouti haddaan nahay oo maxay ahaydey ubadkeena iyo jiilalkeena dambe aynu u gogol dhaxaano oo aynu sidaynu ku hiigsan lahayn adduunka aan wax kula qaybsan lahayn aynu ku fikirno weeyaan waxa kale halkan mahad aan ugu celinayaa dadkii heshiiskaas ka soo shaqeeyay isku soo dubariday maanta maxay ahaydey kalfaldhiga quruxda badan leh maanta maxay madaxdeennii ay iyo heshiiskaas dadkii ka soo shaqeeyay aad iyo aad ugu hambalyeynaya waxaana leeyahay saad uga soo shaqayseen ilaahay maxay ahaydey hayniga abaalmariyo heshiiskani wuxuu ahaa mid waqtigii loo baahnaa ee iyada ahayd yimiday ayuu ahaa oo dhacay waxaanan leenahay hambalyo annagu haddaanu nahay qurba joogta degan Beneluxka wadannada la isku yidhaahdo weliba gaar ahaan Holland waan soo dhaweynaynaa weliba anigoo magacayga gaarka ah waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxa weeyaan nacam Djibouti waxa weeyaan waa wadannada maanta geeska Afrika iyadaa ka muuqata waa wadanka maanta waxaan oran karaa isagu arrin kastoo ka dhexdhacda isagu maxay xalkeeda keena oo xalkiisa la yimaada sida tan oo kalaaba ka marxaatiya maxay tanaa ka marxaatiya waxaa kaloo jirta maxay dagaalkii furuud iyada oo gacan shay soo dhexgelin bay maxay dadkii wadanigii iyagu ay dhameysteen arrimahoogii waxa weeyaan waa horumar ay caan ay ku tahay dawladda Djibouti taana waxaa keenaysa siyaasadda qurxoon maxay ahaydey uu wado Ismaaciil Cumar Geelle uu ka wado wadankeena ayaa taana keenaysa dadkuna waxaana qurux badan wadanka iyo dawladdu haddii ismaandhaaf yimaado in laga heshiin karo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Ilyas Yusuf Barkhada oo reer Brixela waxaan soo dhaweynaa heshiiskii wadankeena ka dhacay ayaan ku faraxsanahay dadkii ka soo shaqeeyay iyo dadkii ka soo qayb galay
aad iyo aad baan ugu faraxnay magacii waxaan ku hadlayaa diasporaga Brixel ya wali waxaan ku sii faraxnay dadkeena oo maxaan ku dadkeena ay soo dhaxgalin aan bacadaan soo dhaxgalin aan wadana jaar ay soo dhaxgalin oo iyagu waxoogii arrimoogii gacmaha qabsaday oo heshiiyay ya ayaan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaa hambalyo waad maasantiina madaxweynaheenuna aad iyo aad buu maadsan yahay sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ta ugu horeysa horta hambalyo weyniyaan u dirayaa madaxweynaha Jabuuti oo maanta guul labaad xagga nabadda maanta uu ka keenay oo ka qaatay waxaan xasuusanayaa ummadda reer Jabuuti inay maanta tahay markii labaad uu madaxweynuhu nabadda uu Jabuuti u keenay 20 sanadood baan ka soo xignaa in 1994 26 December markaan joognay in nabadii uu keenay maantana markii labaad waxaan u maleeyaa inaan prix Nobel de la paix wax la yiraahdo inaan madaxweynahayna inuu ka soo qayb gali karayo inuu xagga maaragtay ka miiriteeyo heshiiskan dhacay wadanka ka dhacayna waa heshiis aan sugaynay madaxweynuhu ciidii iyo si fiican u hadlay Ismaaciil Geedina si fiican buu hadlay waa laba nin oo isgaranaya waa laba duqo oo isla soo shaqeeyay waa laba nin oo aad u garanaya sida reer Jabuuti iyo sida ay politiga in wadankeena si aan u talino waa laba nin oo garanaya labadan nin maanta waxay yihiin le euro national du pays bay yihiin madaxweynaheena maanta farxadda una gaarsiiyay reer Jabuuti meel kasta uu joogo maanta waa ciid waxaan ciidayno weeyaan waxaan leenahay inaan maanta tusno waxaan tusnay inay reer Jabuuti iyo reer Jabuuti dhexdooda ay heshiiyaan wax kasto wax bedheer kama dhaxeeyo wax kasto naga dhaxdhacanayna anaku dhexdeena aan ku dhameeyno wax kale aan ku biiranayaa jirin farxadaaba maanta yaan ku jirnaa hambalyo weyn baan u celinayaa mar labaad madaxweynahayna ummadii gudidii ka soo shaqeysay nabadda iyo dhammaan reer Jabuuti meel kasta ay joogaan kuwii wadankeena joogay kuwa qurba joogta reer Jabuuti qurbaha joogta kuwaasoo dhan hambalyaan u celinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. haddaan nahay qurba joogta hooyooyinka reer Holland heshiiska oo waliba aan ururkan ka tirsanahay ururka hooyooyinka midnimo ee wadanka Holland ka jira anahay waxaan heshiiskaasi aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa waana tu guul lagu gaaray oo loo baahnaa ay tahay dadka iyaga dawladeedu gacanta ay haysata haday noqoto mucaarad iyo maxaafidba yakoo qof soo dhaxgalin ay heshiis ay gaareen on est très fier waan ku faraxsanahay hooyooyinkii qurba joogta haddaan nahay waliba haddii aan nahay hooyooyinka ururka midnimo aad baan ugu faraxsan way tahay waqtigii loo baahnaa ay yakoo maxaa la yiraahdaa qulqul wadanka ka dhicin ama dhibaato ka dhicin ama ay qayl ka dhicin ama wadan kale ama dad kale ay soo faragelin inay ragayagii mas'uuliyiinta labada maxaa la yiraahdaa partiba ay ku isfahmaan ay dantii dadka iyo dadkii danta reer Jabuuti ay isku fahmaan aad waa waqtigii loo baahnaa munaasabka ahayd aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu hambalyeynaa Jabuuti way ku caan baxday oo markii mika labaad weeyaan talabaad waxa weeyaan in wadanka waxay tusaale u tahay geeska Afrika oo dhan wadanka quraatay nabad ka jirto weeyaan maantana horumarka uu gaaray la hiigsanayo ay wadana badan ku taamayaan isagoo wadan yara oo ma daragtay waqti koobanna gobonnimadii ay ka soo wareegtay 35 sano ay tahay maxaa la yiraahdaa waxa weeyaan taa farxad aad u weyn weeyaan waana waxay ku caan baxday nabaddu waana wax xeer u ahaa waana wax xeer jira oo jooga ay dadka reer Jabuuti caan ku ahaayeen soo dhaweys iyo sooriyeyn iyo dhexdoodaba inay heshiiyaan haddii aan nahay hooyooyinka qurba joogta ee reer Holland waliba magacayga gaarka iyo ururkan ka tirsanahay ee hooyooyinka ururka midnimo aan ku hadlayo
waxaan u celinayaa dowladda iyo labada baartiba mucaarad iyo maxaafadba iyo wixii hawshaa galayba inay ummadda reer jabuuti sidaan annaku ugu faraxnay ayakuna ugu farxeen weliba dadka dibadda ay aad u saamaysay ayna farxad weyn gelisay iyo hiigsi dheer oo waddanku hero markuu gaadhay ee lagu wala faraxsan yahay ay aad farxad weyn u keentay qurbajoog ahaan aad shucuurtan anigu leeyahay unbay qurbajoogtoo dhanna leedahay aad baa looga soo dhaweeyey aadna waa loogu faraxsanahay inta kasoo shaqaysay iyo waddanka jabuuti inuu horumar gaaro shicibka jabuutina meel kastay joogaan inay waxay doonayaan nin kastiba uu gaadho waddankeenuna noqdo waddan nimcada oo hoodale uu noqdo hadduu ilaahay yidhaaho asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo bax khayra shardoona oo ku sugan magaalada bruxel waddanka belgiig waxaan halkan ka hambalyeynayaa wada heshiiskii lagu gaadhay waddankayga jabuuti ay labadeeda xisbi ay ku gaadheen iskuna garteen iyagoo danta dadka eegaya waddankaygoo aada u yar iyagoo dantooda ka fikiraya horumarkooga waxaan leenahay hambalyo hawshaa intii gashay ee ku daashay ee ku dadaashay guulna ka gaadhay waan soo wada hambalyeynaynaa annagu haddaan qurbajoogta reer bruxel ambase reer belgiig waxaan leenahay hambalyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad bay ugu wada faraxsan yihiin qurbajoogta joogta belgiig wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu